nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee markii ay ku soo degtay aayadda wa andir cashiirataka alaqrabiin sida muuqaalkii hore aan ku soo sheegnayba waxuu isugu soo wacay adeeradiisa dhammaan qoyskiisa kadibna waxuu u sheegay waxyiga ku soo dega iyo inay ku garab istaagaan sida waxyigani carabta dhexdeedii ugu dhex faafi lahaa. abiilahab oo nebiga adeerkiisii ahaa ayaa ku gacan seeray waxa uuna dhahay tabar aan qabaa'ilada carabta isaga celino haddii ay ina soo weeraraan reer cabdalmudalib ma ay haystaan. muxamedow waxaad wadda ee diinta aad sheegaysaa inaga dhaaf waxaan qabaa aniga ka tala ahaan in adiga bilowgii aan ku qabana si dagaal qabiileed adiga dartaadii aadan inoogu dhex hurinin. abi taalib oo nebiga adeerkiisii ahaa ayaa sidoo kale isaguna waxa uu qabay fikrad ka duwan tii abiilahab waxa uuna ku dhahay nebiga muxamedow samee wixii aad doonto wixii alle uu ku farayna sidii lagu faray u gudo innaga oo dhanna garabkaagii ayaan taagnaan doonnaa cid wax ku oran kartaa ma jirto. abiilahab go'aankani geesinimada ee abi taalib aad ayuu u dhibsaday. nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee adeerkiisii markii uu hubsaday in gadaashiisii uu taagan yahay waxa uu bilaabay dacwadani diinta in si muuqata dadka dhexdoodii inuu ugu dhex faafiyo waxaana la qumanaatay nebiga inuu fuulo buurta maka ku taalla ee safaa loo yaqaano kadibna halkaasi inuu ka soo dhawaaqo waayo xilligaasi sida maanta oo kale sameecado iyo teknoloji maadaama aysan jirin dadku marka ay rabaan in magaalada oo dhan xog inay wada maqalsiiyaan meel taag ah sida buur oo kale qofka inuu fuulo ayuu ka soo qeylin jiray. dadka xilligaasi noolaana si otomaatig ah qeylada ama dhawaqaasi markii la wada maqlaba si degdeg ah ay bannaanka u soo bixi jireen. hadafka nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ahaa isaguna in dadka oo dhan ay isku soo wada baxaan kadibna fariinta diiniga ee uu wado in si jamaca dadka oo dhan hal mar inuu u wada sheego. buurtaa safaa inta uu istaagay ayaa nebiga waxa uu ku qeyliyey kelimad ama oraah carabta ay u isticmaali jireen xilliyada waxyaabaha halis ah ay jiraan. kelimadan yaa sabaaxa qofkii maqlaa marnaba dib uma uusan noqon jirin haddii xitaa qofka uu mashquulsan yahay ama uu xanuunsan yahay uusan soo bixi karin si uu u soo ogaado waxa magaalada ka socda qof ayuu u soo diri jiray si xogtaa loogu keeno. qabaa'ilada marka ay isdagaalaan ama isku tolwacanayaan meelaha sida buurahani oo kale intay istaagaan ayay sidaa qabiilkoodii ugu wici jireen. nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee markii sidaa buurta uu ka qeeliyay magaalada oo dhan ayaa isugu soo baxday qof walba isaga oo indhaha taagaya oo sugaya inuu maqlo waxa la sheegi doona ayaa nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ku dhahay sida aad u wada dhantihiin dhammaantiina haddii aan idin sheego fardoolay duulaan idinku soo ah oo waadigani gadaashii joogta ma i rumaysanaysaan. dadka oo dhan waxa ay dhaheen haa waan ku rumaysanaynaa sababtoo ah adiga muxamedow qof been looga bartay ma tihid. markaas ayuu nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ku dhahay dadkii oo dhan waxaan idinkaga digayaa cadaab daran ee idinku soo socda ee alle oo keliya caabuda sanamyadana iska dhaafa. abiilahab oo nebiga adeerkiisii ahaa kana mid ahaa dadka buurta yimid ee sugaya xogta nebiga uu sheegi doonay inuu maqlo markii uu maqlay sanamkii iska dhaafa iyo cadaab ayaa soo socotay inta uu xanaaqay ayaa nebiga waxa uu ku dhahay oo ma intaan oo keliya miyaad inoo soo wada kulmisay muxamedow maalinta oo dhan sharteedii ha kuugu dhacdo waana soo luguusay. isla markiiba waxaa soo degtay aayadda qur'aanka ah ee alle uu ku tilmaamayo ninka abiilahab ah waa uu halaagsamay tabbat yadaa abiilahabin wa tabba sababtoo ah abiilahab waxa uu ahaa adeer aad u xun oo nebiga mar walba inuu hor istaaga ka shaqayn jiray. dadkii isugu soo baxay oo dhan marka ay fariinta nebiga ay maqleen iyaga oo waxba aanan dhihin ayay bilaabeen in gurigooda isaga soo noqdaan. laakiin sheekada nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee magaalada ayaa si aad ah ugu dhex faaftay. waagii hore xilliga dacwada qarsoodiga ay ahayd hal guri oo keliya ayay muslimiinta ku wada kulmi jireen laakiin maanta wixii la qarin jiray meel buur ah oo dadka oo dhan ay wada maqlaan ayuu nebiga uu ka sheegay. mar haddii fariinta waxyiga uu xambaarsan yahay dadka oo dhan uu u soo gudbiyey magaalada oo dhan ayuu nebiga qabsaday. qof walba xilligaa waxa uu bilaabay inuu ka hadlo nebiga iyo nebinimadiisa. intaa oo keliya nebiga kuma uusan ekayn waxa uu sidoo kale uu bilaabay in sanamyada uu ka hadlo waxa uuna bilaabay in nebiga dadku u sheego in sanamyada ay yihiin ilaahyo waxba aanan ka jirin oo la iska samaystay. dadkanise laga soo bilaabo ilaa awoowayaashoodii sanamyadani ayaa waxay u arki jireen ilaaha keliya ee xaqiiqada ah. warka nebi maxamed maadaama magaalada maka uu ku faafay mabda'a diineed ee magaalada ka jira oo dhan ayaa isbeddel inuu ku dhaco looga baqay. odayaashii carabta waxay u baqeen
ciyaalkoodii in mabda'ani cusub ee diiniga ee Maxamed uu wada in ciyaalkoodii ay ku sahmoobaan. Sanabyadani uu wax ka sheegayna waxa ay bilaabeen inay ka hor istaagaan. Sida dabiiciga ahna qof waxa uu ku soo barbaaray ee lagu soo tarbiyay ayuu daa'ima qofku u arkaa in shaygaas sax uu yahay. sidaasi darteeda Nabi Maxamed nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee arrintiisii si aysan u faafin odayaasha Carabta waxay xal u arkeen in qoyskiisii nebiga ay ku soo dacweeyaan. haddii qoyskiisii nebiga ay ka joojin waayaan diintani uu wado, odayaasha Carabta waxaa ka go'oneyd in nebiga gacan ay u qaadaan oo iska celiyaan. waxay u imaadeen maalin Abi Taalib oo nebiga adeerkiisii ahaa, waxayna ku dhaheen Abi Taalibow, nin oday oo aqyaan ah waa tahay, adiga iyo inaguba hal diin ayaan wada rumaysannahay. awoowayaashaadii oo dhan diintii aan haysan jirnay ayay ku wada dhinteen, adiguna diintii awoowayaashaadii ayaad ku taagan tahay. wiilkani aad adeerka u tahay barnaamijyadani diiniga ee uu inagu dhex wado, fadlan adiga ayaa adeerkiisii ah ee wax u sheeg oo ciyaalka yuusan inaga khaldin, ama haddii adiga aadan waxba ka qaban karinna inagu daa, inaga ayaa iska celin doonaa. Abi Taalib waxa uu dhahay, hagaag, waan la hadli doonaa Maxamed, waxna waan u sheegi doonaa. si wanaagsan ayuu maalinta Abi Taalib ula hadlay odayaashii, iyaga oo qanacsan ayay Abi Taalib ka soo tageen. Abi Taalib ma uusan doonin in odayaashani buuq ula galo, mana uusan doonin in wiilkani adeerku u yahay ee Nabi Maxamed in dareenkiisii uu dhaawaco. sidaasi darteeda Abi Taalib odayaashani waa uu qanciyay, kadibna shib ayuu iska dhahay Abi Taalib isaga oo waxba aanan samaynin. Nabi Maxamed nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee dacwada sidiisii ayuu u watay. waxa uuna dhahay, yaa qowmi ibudullaaha maa lakum min ilaahin ghayruh. sidii nebiyadii hore oo kale dadka sanamka in ay ka dheeraadaan oo ilaah keli ay caabudaan isaguna ay raacaan ayuu farni jiray. xilligani magaalada Maka oo dhan maadaama nebiga hadalkiisii dadku ay hadal hayeen, waxa uu ku soo aaday xilligii xajka. dadka iyaga oo mushrikiin iska ahaa, xitaa xilligaasi qof walba sanamkii xajka u yaalay ayuu u soo xajin jiray, ilaa dhulal badan ayayna dadka xajka uga imaan jireen. dadkani Carabta ee nebiga uu ku dhex jiro asalkoodii dad diin lagu yaqaano oo xujaydana martisoorta ayay ahaan jireen. laakiin sanadkani arrinta waa ay ka duwan tahay sidii hore. magaalada oo dhan nebi cusub iyo diin cusub ayay dadka hadal hayaan. haddii xujayda magaaladani oo dhan ay wada imaado sheekada nebiga nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee, waxay Carabta ka baqeen inay faafto oo dadka xujayda ahna ay ku saamoobaan. si aysan arrintaas u dhicin, si degdega waxa ay bilaabeen in shir ay qabsadaan sidii nebiga ay uga hor istaagi lahaayeen. odayaashii Carabta waxay dhexdoodii iclaamiyeen shir degdeg ah oo looga hadlayo arrimaha nebiga iyo dadka xajka imaan doona wixii ay ku samayn lahaayeen. odayaasha oo dhan waxa ay ku wada kulmeen guriga nin ugaas u ahaa oo la oran jiray Waliid bin Mughira. halkaasi ayayna bilaabeen inay ku tashadaan. waxa ay ka baqayeen oo keliya odayaashani wadamo kale maadaama laga imaan doono dadka xujayda in Nabi Maxamed iyo diintani cusub iyo arrimaha in ay maqlaan. waxa uuna ninkani odayga ahaa ee Waliid uu ku lahay, qof walba fikrad ha keeno, kadibna fikradda ugu fiican ayaan dhammaanteen isku wada waafaqi doonaa. Maxamed waa inaan hal kelimad aan ku dhajinaa, kadibna waa in dadka oo dhan kelimadaas ay ugu yeeraan. qaar ka mid ah odayaashii Carabta ayaa waxay dhaheen, waxaan ku dhajinaynaa magaca kaahin, qof walbana waxaan ka dhaadhicinaynaa in ninkani kaahin uu yahay. sidaasi darteeda dadku waa ay ka baqayaan oo lama dhagaysan doono. haddii uu wax sheego xitaa kaahin iska hadla ayay dadka u malayn doonaan. Waliid waxa uu dhahay, taasi macquul maaha, ninkani kaahin ma aho, dadku si degdeg ayay u fahmi karaan. fikirkani kaahin inaan dhahno waa mid laga fiican yahay. oday kale ayaa isagana waxa uu dhahay, waa majnuun, nin waalan aan dhahno. kadibna dadka oo dhan ha ka kala carareen. isla Waliidkii ayaa waxa uu dhahay, haddii ninkani aan ku dhahno waa majnuun, inaga ayaa fadeexoobeynaa. sababtu waa qof waalan waa mid dadka la dagaalama oo weerara ama naftiisii dila. astaamo waali ahna ninkani Maxamed ah maadaama uusan lahayn, wuu waalan yahay, arrin la dhihi kara ma aha. oday kale ayaa waxa uu dhahay, bal ka warama haddii aan dhahno qur'aanku uu akhrinayo waa gabay, nebiguna waa gabyaa, si aysan dadkaba ugu mashquulin. isla markii odaygii Waliid ahaa ayaa soo booday, waxa uuna ku dhahay, oo miyaydan ogeyn Carabta gebigeedii oo dhan gabayada in si fiican ay u yaqaaneen, weliba noocyadiisii kala duwan. qur'aankani lama oran karo waa gabay, ilaan Carabtu gabay waa ay taqaanaa. oday kale ayaa waxa uu dhahay, bal aan dhahno ninkani waa saaxir. sababta waa haddii sida aan ku dhahno, dadku waxaa laga yaabaa markay arkaan mabdi'iisa in hadalkeeni run ay u maleeyaan. waayo qofkii Maxamed rumaystaa diintiisiina qaataa, waalidkiisa, xaaskiisa, oolaadiisii ayuu qofka uu khilaafayaa.
tanina sixirka madiidada ee dadka lagu kala geeyay nin yaqaana aan ka dhigno kadibna dadka oo dhan aan ugu sheekayno waa saaxir. isla waliidkii ayaa waxa uu ku dhahay saaxiriintu waxyaabaha xirsiga ay xiraan iyo waxyaabaha ay tufaan ninkani waxaas maadaama uusan samaynin sidee ayay sifadani saaxirnimada ay ku qaban kartaa. ileen saaxiriinta oo dhan waxa ay ka siman yihiin sixir iyo waxyaabo dadka ay ku dul akhriyaan. fikir walba odaygani waliid ahaa odayaashii waa uu ka diiday. markaas ayaa odayaashii waxay ku dhaheen bal waan daalnay adiga waliidow tali inoo keen waxaad inoo sheegtay ayaan dhegaysan doonaa. markaas ayaa waxa uu dhahay isuga waxaan u baahanahay in waqti aad isiisaan si aan u soo fakaro. ninkani waliid bin muqiira waxa uu qur'aanka kariimka uu sheegay qaabka uu u fakarayay innahu fakkara wa qadara. waliid waa uu fakaray kadibna wax buu iska qiyaastay lacnad ha ku dhacdo sida uu wax u qiyaastay thumma qutila kayfa qadara. wejiga ayuu kaduuday isaga oo isla weyn. markaas ayaa waxaa la qumanaatay waliid inuu dhaho muxamed waa sixirlow in haada ilaa sixrun yu'thar in haada ilaa qowlun bashar. odayaashii intuu u soo laabtay ayuu ku dhahay fikirkani saaxirkaha ayaa aniga laftinkeygii ila quma haddii aan si wanaagsan aan u soo fakaray. qur'aanku uu akhrinayana waxaan oran doonaa waa qowlun bashar hadal iska caadi ah oo bani aadam uu ku hadlay ayaan ka dhigaynaa. odayaashii ugu waaweynaa carabta go'aankani ahaa in nebi maxamed lagu sheego waa saaxir ayay isku wada waafaqeen. waxa ugu weyn ee saaxirnimo ay u doorteenna waa inay dadka ka dhaadhiciyaan maadaama qofka diin marka uu qaato mabda' diineed oo keliya dadka walaalada la ah uu la walaaloobay in ay ka dhigaan in maxamed saaxir uu yahay dadkuna uu kala geeyo ninka iyo naagtiisa saaxiibada ehelka ama qofka iyo qaraabadiisii qof kala geeya si ay uga dhigaan ayay kelimadani saaxirka ay u doorteen. kadibna odayaasha marka kelimadani saaxir ay isku wada waafaqeen magaalada oo dhan ayay bilaabeen in kelimadani ay ku faafiyaan. dadka xujayda meelaha ay ka soo galayaan albaabada oo dhan inta ay fadhiisteen ama dad ay u soo dirsadeen ayaa waxay ku dhaheen dadka magaalada soo galaya sida waardiye oo kale ha looga digo ninkani shartiisa si aanan isaga oo dhan gebigiisii aanan loo dhegaysanin. dadku marka ay magaalada ay soo galayaan sida waardiye oo kale waxaa la dhahay istaag magaaladani gudaheedii nin saaxir ah oo halis badan ayaa ku jira. haddii aad ninkaad isku dhegaysato aad u tagto qoyskaagii oo dhan ayuu kaa sixirayaa fadlan ka taxadar si nabad leh xajkaagii u soo gudo. ninka muxamed ahaa ha u dhowaanin waa saaxir fadlan waan kaaga dignay. nebi maxamed nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee mari jiray wan ka joog ninkani lalama hadlo waa saaxir ka joog hala hadlin aniga ayaa adeerkiisa ah. odayaashii carbeed kulankani iyo taytalkani ay isku dayeen in nebi maxamed ay kaga guulaystaan hadafkoodii ugu yaraan waa ay gaareen laakiin si dhaba marka loo fiiriyay nebiga ayay u daneeyeen iyaga oo ka hor istaagay in dadka dacwada uu gaarsiiya haddana ugu yaraan magaciisii ayay magaalooyinka ilaa wadamada xajka looga imaado oo dhan ayay ku faafiyeen. nebi maxamed nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee isaga oo maka oo keliya laga yaqaan ayaa ilaa wadamada bilaadu carab oo dhan ay ku faafiyeen. sifada saaxiirnimada haba ku faafiyeen ugu yaraan magaalada qof nebinimo sheegane oo diin cusub iyo sanamyada in laga fogaado ku baaqayo in magaalada maka uu ku dhex jiro ayay dadka ka war heleen. intaa wixii ka dambeeyay carabta waxa ay bilaabi doonaan tilaabooyin weerar psychology ah in nebiga xaqiraad yasmi iyo waxyaabo lamid ah inay ku sameeyaan. ujeedkoodii oo ah in nebi maxamed ay ka takhalusaan dacwadani diiniga ee uu wado. halkanise ha inoo joogto waa qaybta 8aad iyo barnaamijka xiga haddii uu eebban cali ka naqdo.